deegaankii awowgay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeyda lama soo koobi karo geelayga waa la gudoonsiiyay alxamdulillah waxay ahayd madal farxadeed oo nooceedu ku cusub yahay guud ahaan geeyga Soomaalida goob kulmisay odayada labada arda ee ka soo kala jeedaan lamaanaha dhawaan iscalmaday ee kala Fanaanada caanka Safiya Tusmo iyo saygeeda ganacsade Cabdullaahi Yuusuf Aare waana dooxada taariikhiga ee Harawa ee magaalada Arabi halkaasi oo maanta si rasmi ah Fanaanada Safiya Tusmo loo gudoonsiiyay 120 geela oo ahayd meherkeyga uu dhawaan ku mehersaday saygeeda Cabdullaahi Yuusuf Aare madashni farxadeed ayaa waxa ugu horeen ka hadlay maxamuud aare miicaad oo ka socday dhinaca sayga Safiya Tusmo waxana uu si sharaf iyo milga ku dheehan tahay 120 geel ugu wareejiyay iga Xuseen oo isaguna geelani u gudoomay gabadhooda Safiya Tusmo oo dhinkeeda ka socday waa kuwan iyaga geelaasi kala gudoomaya hadallo kala duwan oo mahadnaq u badanna goobtaasi ka soo jeedinaya anigoo maxamuud aare miicaad ahna Cabdullaahi Yuusuf Aare adeerkii geeli 120 ka halaad ahaayeen gabadhii Tusmo ku meherinay ayaan halkan gudoonsiinaya gacalkii lahaa yaan halkan gacal oo geelna waa inaad iga gudoontaan 120 kii halaad ba halkan aan idin marinaya imika iyagoo magacadoodiina waliba aan idin tirinayo ya geelay waa inaad gudoontaan waan gudoonay gacal dhalinyaro waa yeelba saaxiibkii dhawal oo gabadha maalintii la meherinayeen goobjoog ka ahaa duqaydii gabadha u joogtay meherkeedii ahaa oo maalintii yiri codkiis fagaara aan joogay oo meher inta la ka dhacwayay kow laakiin maasha lagu bixin doonana waanu joogi doonaa yiri nasiib darro arrin aw yeeshay maanta ugu suuro gali weeday inuu yimaado anaana geeli bixiyay anaana isagii halkiisii ka wakiilaha waliba wakiil ugu ahaanaya waan gudoonay geeli Tusmo lagu meheriyay 120 kii halaad ehelkiina waan gudoonsiino oo iyaga u gudoomay waligii gabadha u gudoomay inta waa inta marka koobaad waan salaamay hadde boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos farxad badan la weeyaan Soomaalida dhaqan baa uma hayn yani 120 halaad oo gabadh lagu meheriyay dhaqan baa uma hayna waa shay cusub farxad daraaddeed weey anigoo iga Xuseen cilmi ama kaariga degmada Harawa la talinta nabadgelyada marka yani arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waanan ka gudoomaynaa waanan gudoonay sidoo kale waxa isaguna goobtaasi goobjoog ahaa Sheekh Cilmi Naxwi oo isagu ahaa qaadiga ama Sheekhi Cabdullaahi Yuusuf Aare u meheriyay marwadiisa Safiya Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweeyay geelini maanta kala gudoomiyeen labada arday ka soo kala jeedaan lamaanahani dhawaan iscalmaday isagoo sidoo kale halkaasi ka xusay in 20 geel oo kamid ahaa geela maanta la gudoonsiiyay Safiya Tusmo ay ugu deeqdeen maskiid dhismihiisu ka socdo deegaanka Arabi waxana uu yiri anta sida Xaaji Maxamuud sheegay halkan geeli Safiya Tusmo lagu meheriyay meherkeyga ahaa 120 kii geel ahaa ayaa lagu gudoomay oo lagu kala wareegay cidii maarksa lahaydna ay sida u gudoontay waxaan anigu ku darayaa oo Safiya Tusmo waxay sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan Arabi masaajidkii ugu weynaa ee maarksa centerka ku yaalay masjid jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda Safiya Tusmo waxay sheegtay 20 geela inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo kamid ah 120 ka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halka ka socdana aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb kamid ah aad ku bixiso intaasaan ku daray aad iyo aad baad mahadsantii kuma ekeynta soo galiya balse waxa madashani farxadeed ku sugnaa odayaal ka soo jeeda deegaankaasi oo iyagu markhaati ka ahaa geele maanta kala gudoomiyeen labadan ardaa waxana haloodii kamid ahaa halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah Maxamed Ismaan Yuusuf oo ah qabiilahan marka la sheegana Makaylere oo Makaayila inaan dooxa rukaysan lagu gudoonsiiyay ehelkii ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan cadeynaynaa in 120 ka loogu mehershay xay ahaayeen oo gudoonsiiyay Maxamuud Aare Xaaji Maxamuud Aare ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadashay Fanaanada caanka Safiya Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweysay in maanta dooxada taariikhiga Harawa lagu gudoonsiiyo 120 geela oo ahayd meherkeeda waxana ay tiri maanta waxa Ilaahay mahadi ah inaan joogo gurigii hooyadii
beerihii abtiyaashay abtigay maxamuud aarami cad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geelaygina maanta isagoo gudoonsiiyay halkani waa dhulkan anoo yar ku ciyaari jiray harawa waa meel hodana oo ah meeshaan ku koray geedaha yar gadaashooda hooyaday ku aasan tahay Allah u naxariiste waa hoomkaygii waa wadankaygii waxa weeyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay tahay caruurnimadeedii baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awowgay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeeda lama soo koobi karo geelaygii baa la gudoonsiiyay alxamdulillaah abtigay macaan hooyaday walaalkeed maanta ilaahay igu sameeyay isagoo caafimaad qaba inaan saaka boorama ka soo wada 120 haladna gacanta iga saaray alxamdulillaah umada Soomaaliyeed fiidiyaan daawan doontana waxaan u leenahay waad mahadsantihiin waa Mustafa Caraale dooxada Harawe ee magaalada Arabi